Markii aniga iyo walaalkay aan bilaabaynay shirkadda ugu horeysay, halkii aan degi lahayn guri waxaan kiraysanay yar. Fadhiga ayaan wada seexan jirnay, waxa aan ku soo qabaysan jirnay musqulaha hoteelada. Way adkeyd xaaladdu. Waxa aan haysanay hal kombiyuutar. Website-ku maalinkii ayuu shaqaynayay, aniguna habeenkii oo dhan ayaan ka shaqaynayay. Toddobada maalmood ee isbuuca waan shaqaynayay. Xilligaasi kooban waxaan u lahaa lamaane si ay aniga ila joogto. Waxa qasab noqotay inay ila seexato xafiiska yar. Assalaamu calaykum asxaabta. Magacaygu waa Cabdildiif Maxamed Yuusuf. Halkanina waa Roman Media. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Hadaladan waxa ay qayb ka ahaayeen khudbad uu jeediyay Elon Musk 2014kii. Arday ganacsiga ka qalin jebisay gudaha jaamacadda Mareykanka ku taal. Xilliga uu ka sheekeynayay waa 1995. Shirkaddii uu waga sameeyay waxa ay ahayd Zip2 oo ahayd web online ah. 4 sano kadib waxa uu ku iibiyay shirkadaasi 340 milyan. Sidoo kale waxa uu lacagtaas ku sameeyay qaybteedii bangi online ah oo la oran jiray x.com oo gadaal loogu bedelay PayPal. Waxa uu isna ku iibiyay 1.5 bilyan. Isla sanadkaas ayuu aasaasay shirkadiisa maanta jirta ee SpaceX oo ah shirkadda soo saarta qalab hawada sare u socdaala iyo kuwa la rajeynayo in sanadaha dhow dunida lagu kala safro. Waxa kale oo sanadkii xigay wax ka aasaasay oo uu maamule ka noqday shirkadda baabuurta soo saarta ee Tesla Inc oo uu sheerka ugu badan ku leeyahay. Elon waa hal abuur ganacsi, deeq bixiye, bilyaneer iyo maalgeliye teknoolojiyadeed. Waxa iska dhalay aabe South African ah, white South African iyo hooyo Canadian ah. Waxa uu ku dhashay South Africa, Canada ayuu waxbarasho u tagay. 2 sano kadib ayuu Mareykanka yimid. Waxa uu haystaa dhalashooyin South Africa, Canada iyo USA. Maanta waa bilyaneer haysta hanti kor u dhaafaysa 42 bilyan. Waa qofka 31aad ee dunida ugu hodansan. Forbes listigeeda dadka ugu saameynta iyo awoodda badan dunida waa qofka 21aad. Waa deeq bixiye dhaqaale badan kuna baxsha deegaanka. Awoodana saara teknoolojiyadda iyo horumarinta nolosha aadamaha. Mar laga wareysanayay waqtiyadiisii ugu adkaa wuxuu yiri 2008 ayay ahayd waxaan hayay lacag dhan 40 milyan oo kaliya. Labadeeda shirkood waa SpaceX iyo Tesla u baahnaa dhaqaale agta aan hayo kuma filnayn. Haddii aan mid ka mid ah maalgeliyo tan kale waa ay dhimanaysaa. Haddii aan labadooda ku maalgeliyana inay labadooba dhintaan ayaa macquul ah. Waxa aan qaatay go'aanka ah inaan labadooba u qaybiyo ayna badbaadeen. Sidoo kale waxa uu yiri saddexdii gantaal ugu horeysay aynu hawada u dirnay saddexduba waa ay fashilmeen oo markii ay in yar kaceen ayay qarxeen. Mana aanan quusan ayuu yiri. Haddii midka afraad uu isna fashilmo dhaqaale kale ma hayno. Inagoo taas og ayaan haddana isku dayeynay. Kii afraad ayaa guuleystay. Waxa ay taasi dhaxal siisay in shirkadiisu maanta ay agabka hawada sare hormuud u tahay. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay shirkadiisa ay hawada sare u dirtay gantaal xambaarsan dayax gacmeed dad sida. Waana markii ugu horeysay taariikhda shirkad gaar loo leeyahay ay dad u safriso hawada sare. Sidoo kale waxa uu rajeynayaa in mustaqbalka dhow muddo saacad ka yar loo kala socdo labada cirif ee nus saac loo kala socdo London iyo New York. Sidoo kale Elon waxa uu wadaa qorshe bini'aadamku uu dayax gacmeedka ugu laabanayo iyo qorshe lagu gaarayo Mars. Waxa uu yiri hadii aad shaqayso maalinkii 5 saacadood, saaxiibkaana uu shaqeeyo 10 saacadood, isku dheef ma tihiin. Si adag u shaqee si ay riyadaadu u rumowdo. Halkayna maanta waa naga inta. Fadlan like saar muuqaalkan. Sidoo kale haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena subscribe saar si aad u hesho sheekooyinka noocan oo kale ah.